taasoo dhib aad maraysaan inaad ka guulaysateen cadowgii godadkaas aan aragnay ku jira runtii waxay na tusinaysaa dadaalkiina iyo ka go'naanshihiina iyo geesinimadkiina waxaa la rabaa marka hadduu alla yidhaaho intaa in ka badanna aan ku sii talagalno waayo dalkiiyo dadku waxay sugayaan waa idinka waxa la rabo nimankaas kolba meel god ka qodanaya ee hadda raba inay godadkaas iyo guryaha dadka ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed guryahooda intay god ka qotaan la burburiyo oo halka ku burburaan cidda kaliya ay hadda wax ka qaban karto waa idinka marka waxaan rabnaa hadduu alla yidhaaho waxaan idinku imaaday waa inaan guusha aad gaadheen idinku mahadceliyo intay inaga shiideen ilaahay u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noo caafiyo waxaa la rabaa marka guusha waa la hayaa waa la adkeeyaa sooma hadaa intaad guul gaadhid lagaaga daba yimaado guushii waxa ma noqonayso waxaan rabnaa hadduu alla yidhaaho meesha aad qabateen iyo halka aad joogtaan in horey looga socdo oo 10 kilomitir 20 kilomitir ah ka socotaan mooyee cidda halkan ku hadhaysa waa inay shaqadaas qabato inaysan dib u noqon inaysan dhicin in la yiraahdo wabiga xagga ka maray iyo saasay noqotay ninka ragga cadowgu uguma yimaado meeshuu degan yahay isaga cadowga meeshiisa ugu taga askariga xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga rabaa meeshuu cadowgu joogo inuu cadowgu uga baqay inuu isaga uu cadowgu meeshuu ugu imaanayo uu ka fikira ma aha marka waxaan rabnaa in roondada la badiyo la socdo la wareego fursad ba aan loo siinin nimankaas inay ku soo hamiyaan inay meel kale ay tagaan hadduu alla yiraahdo aadna waa idinka mahadcelinayaa runtii shaqadaad qabateen wax kale oo idin dhahayo ma jiro cali baan taliyaha guutadan aan la dardaarmay kulli xoolo qalna waa la idiin samayn waa la idinka warhayn hadduu alla yiraaho wixii shaqaa iyo wixii waajibaad oo dhimanna idinkaas sii dhamaysan doona waxaan idinku imaaday kaliya waa mahadnaqas inaan idin mahadceliyo guul weyn baad gaadheen runtii oo waayahan aan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo marin inaad marka u bilowdaan oo guushaas aadna tustaan waxay macna ka leedahay in ciidamada kale dhammaan ay guulaysan doonaan marka waxaan rabnaa hadduu alla yiraaho sida hadda u guulaysateen mar walba in loo guulaysto guushana waa in lagu fikiro si ay guul u imaato marka hore qofku markuu ku fikiro inuu guul keeno ka go'an tahay yuu ku dhaqaaqaa waa aragteen hadda godadkaas nimanka ku samreeyay usbuuc dhan idinkana hadda galaan iriyo waxa la leeyahay waa la geli doonaa xoog si fiican baa loo geli doonaa nimanna waxay ku jireen usbuucyo dhan Sooma waxa laga yaabaa walaaladeen inay ku jiraan kuwaas iyaga DNA-geenu ma kala duwano dhiigeenu ma kala duwano muslim baan nahay caqiido gaar ah oo kala haysan ma jiro kuwa khawaarijta mooyaane waxa noocaas marka waxa keenaya waa ciidanimadka halkaas fadhi ama ha kululaato ama ha qaboobato ama jannaha noqoto ama cadaab waa inuu amarka qaataa waajibka uu qaataa in yar kadibna guusha waad gaaraysaa laakiin haddaad tiraahid mar walba meeshan lama socon karo lama mari karo meeshan way dheer tahay habeen lama socon karo waqtigan sidan ma aha sideedaba ciidanimo ma aha waxa la rabaa marka si aad cadowgaaga uga faa'iideysatid waa in la kadiyo Soomaa xilli uuna filaynin la aado meel uuna ka filaynin looga tago waa in qorshe ka bedelan la sameeyo marka waxaan rabaa hadduu alla yiraahdo inaad dadaashaan shaqada aad haysayna si laba jibaartaan cadowguna waa jabay inta hadhay insha Allah insa sii raacino sida aad ku tala gashaan cibaadada ilaahayna ku dadaal xabad baad ku jirtaan dagaal baad ku jirtaan habeen iyo maalin ilaahay wax fiican in la hortaga asal ah wax fiican oo shaqo fiican waan haynaa dadkii iyo dalkii diinta difaacayna laakiin ilaahay xiriirkiisana waa inaan toosino salaadii u horeysay nin walba ku tala gal salaadaada iyo cibaadadaada inaad hagaajisatid guushana mar walba waad helaysaa mar allaaliya markaan ilaahay u dhawaano guusha waad helaynaa haddaan ilaahay ka fogaanana dee guul daraan gelaynaa marka waxaan idinkula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed nimankaas mujrimiinta ee khawaarijta dhibaatada ay ku hayaan cid kale oo inaga saaraysa oo alla uuntay ma jirto waxaan idinka ka ahayn waxa la rabaa marka idinku inaad isu xil saartaan arrinta waajibka qaadataan horeyna waa idin kala hadlay shaqayaysa idinka noqon caqiidaha idinka noqoto